waa taariikh oo wuxuu dib u daawadaynaya dhigihii aqalka nabadda timaatadana waxaa lagu dhigayaa dhaxal nololeed oo loo aayo kaasoo tagtada ku daraya dekanooyinkii shaydaan iyo sharkalkaal kala dhex dhigeen dadkanoodii yaab wadaagta ah xigtadiiyo sokeeyihii seeraha kala yeeshay saaka waxay ku wada fadhiyaan hal salli cerigabana waa cusub ayaa u baryay hogaamin samatalis ah oo uu madaxweyne Ciro 10 bilood gudahoodu ku wajahay dib u midaynta dadkiisa ayaana tan sabab u ah geediga nabadda ee soo bilaabmay markii la doortay madaxweynaha dalka Cabdiraxmaan Ciro waxa uu sanaag dhaxal siiyay in dadkeedu ka bogsoodaan dakharadii colaada 22 Oktoobar arbacadii la soo dhaafay Ceeri waxa ka yimi sawir wada jir ah oo muujinaya dad iyo dal mida dacal ilaa dacal hal maalin uu ka horeeyaantaasi ayay ahayd markii suldaanka guud ee beelaha harti Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan iyo mudanka dhaqanka ee beeshiisa ay socdaal ku soo gaadheen Ceeri Gaabo iyagoo oo soo ajiibay darmadii nabadda ee madaxweynuhu uu fidiyay isla dharaartaasina waxaa isna Ceeri Gaabo socdaal dhinaca cirka ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Ciro oo uu helinaya ugaaska guud ee gobolka Awdal iyo Salal ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble wafdiga madaxweynaha iyo kan suldaankaba si diiran ayaa degmadu ay u soo dhaweysay dareen ahaana dadku waxa ay qabeen rajo maanta u rumowday oo ah wada noolaansho iyo heshiis labada dhinac la isla qabto shirkii nabadda iyo gudidii madaxweynuhu diray iyo guurtidii suldaanku soo xuleeyay si qodax gureen ayaa fadhigan lagu soo xidhay 6 qodob oo buddig u walaalnimada reer Sanaag kuna soo go'an wax wada yeelashada dawladnimada ayaa shirkan ka soo baxay kuwaasi oo dhigayay 1 in nabad iyo walaalnimo lagu wada noolaado guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo 2 beelaha walaalaha ee wada degan gobolka Sanaag inay isla garteen in la iswada ilaashado nabadgelyadooda wada jirkooda walaalnimadooda iyo dawladnimadooda jamhuuriyadda Soomaaliland 3 beelaha reer Sanaag waxay isla qaateen nabad loogu baaqo lagana hawlgalo sidii loo raadin lahaa cid kasta oo ka maqan gogosha nabadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhigay qodobka 4 waxa lagu dhigay in beelaha gobolku ay xukuumadda si wada jir ay uga dalbadeen mashaariicdii horumarineed ay Sanaag xaq u lahayd maadaama ay baahi weyn u qabto 5 waxa lagu heshiiyay in guud ahaan amniga iyo nabadda gobolka Sanaag ay dawladdu mas'uul ka tahay cid kasta oo nabadda cadow ku ana ay dawladdu gacan bir ah ku qaban doonto iyadoo kaashanaysa shacabkeeda qodobka 6 beeluhu waxay si midaysan ay ugu mahad celiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gogosha nabadda ee uu dhigay gobolka Sanaag iyo isku wadka bulshada reer Soomaaliland ee sida hagar la'aanta uga shaqeynayo madaxweynaha Soomaaliland Ciro suldaanka guud Suldaan Siciid oo uu helinayo ugaaska guud ee Cabdirashiid ayaa markhaati ka ahaa munaasabada lagu dhaabay dhigaha nabadda ee Sanaag 10 bilood kadibna loo yacadeyn la ceelaayo Soomaaliland way isku calool fayowdahay Sharabanday TV-ga qaranka